السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دي سلامي دمان ولا ميلو بعد joogtaan وأنا وهولاشين سمي محمد يوتيوب نالka daawanaysidna oo sumay daacad kusoo dhahdaa ku cusub tahay subscribe sahar mar kale isku noqod wanaagsan okay muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa mid ka mid ah saaxiriintii ugu waaweynaa ee toobad keenay oo lagu magacaabo Xaamid Aadam Al-Muusa oo yani haatan u diiwaan gashan yani saaxiru taa'ib oo macnaheedu yahay yani saaxirkii toobad keenay isagoona muddo 17 sanadood ah ku dhex jiray yani arrimaha jinka iyo sixirka oona la tacaamuli jiray 286 oo jinyaalo ah shayaadiinta iyo jinyaasha yar iyo weyn iyo dhexaadba acuudu billah iyadoona yani intaas oo dhan muddadaasi 17 sanadood ah dadku ay u arkayeen inuu yahay yani sheekh wanaagsan oo maaragtay diinta xaqa ku taagan oo wax wanaagsan yani dadkana ku daaweeya barana oo dadkana ku daaweeya ama sidoo kale bara loo maleyn jiray inkastoo yani muddo kadib uu noqday sidii la filayay ama yani sheekhi loo maleynayo oo wanaagsana uu noqday waa markii uu soo toobad keenay si kasta ay ahaataba kusoo dhawow muuqaalkeena maanta. okay hadaba shakhsiga aan ka hadlayno ama wadaadka aan ka hadlayno Sheekh Xaamid Aadam wuxuu ka soo jeedaa dalkaasi Suudaan isaga ayaana markii uu soo toobad keenay kadib ka sheekaynayo hadalkiisana wuxuu ku bilaabay waxaan u hijrooday buu yiri in aan barto Quraanka Kariimka oo aan xifdiyo sidoo kalena aan wax ka barto cilmiga shareecada ama si aan u noqdo mid ka mid ah adoomada Alle ee wanaagsan hadafka oo markii hore uu u baxay midkaas ayuu ahaa inkastoo uu la kulmay ama uu bartay waxa uu u baxay cagsigeeda ama yani aanan isku soo dhaweynba waxaan u tagay buu yiri shuyuuqdii oo markaasi yani loo arkayay inay yihiin shuyuuqda wanaagsan ama aniga aan wax ka baran karo bal qiyaas meel aad ugu tagtay ama dad aad ugu tagtay inay wanaag ku baraan ay noqdeen dadkii xumaanta ku bari lahaa dadkii wadada baadida iyo yani oo wadada xun ee baadida ah ku hagi lahaa oo bakaaridi lahaaba yani qarka asaaran tahay ee wanaagsan adiga waxay ahaataba shuyuuqdaasi uu u maleynayay inay wanaagsan yihiin ama uu ugu tagay yani inuu ka barto cilmiga sheekh ugu horeeyay oo aan ardadiisa ka mid noqday buu yiri ama aan yani xirtiisa ahaa wuxuu ii sii gudbiyay buu yiri isagana sheekh kale ama oday kale sheekh ma dhihi karnaa oday kale ayuu ii soo gudbiyay buu yiri odaygii kale isagana markii aan cabaar la joogay yani xoogaa aan meeshaasi wax ka baranayay isagana wuxuu igu yiri buu yiri waxaan ku diri doonaa Nigeria si aad yani u sii barato ama aad u sii gaarto cilmiga aad uga gaarto darajo sare cilmiga aad rabtid si aad uga gaarto darajo sare waxaan ku sii diri doonaa Nigeria meeshaas waxa kula kulmi doontaa buu yiri sheekh kale oo aniga iga sii sareeyo ama macalinkayga kadib waan baxay buu yiri Nigeria markii aan tagay odaygaasi ayaan u adeegi jiray buu yiri waxaana la igu dhahay buu yiri odaygan igu dhahay iyo kii labaad aan ka soo tagayayba wax allaala iyo wixii uu ku diro samay yani wax su'aal ahna ha ka soo celinin yani wax su'aal ah ba weydiinin wuxuu ku diro kaliya samay muddo markii aan halkaasi joogay buu yiri oo yani la ibarayay ma aragtay cilmigan xun ama yani sixirka badan waxyaabo badan yani aanan hadda habooneen waxyaabaha yani oo looga sheekeeyay ma haboonaba hadda inaan ku hadalno ama yani aan idin soo bandhigno waxa kamid ah buu yiri waxa la ibarayay in qaybo kamid ah Quraanka si gadigadi ah la ibarayay inaan u akhriyo ayaa la igu sheegayay buu yiri tusaale ahaan suuratul Faatiha oo kale in aan hoos ka soo bilaabo aan kor u akhriyo subhanallah wallahi ilaahan ka maangalnay nacuudu billah wax wanaagsan maahan kadib adiga marba mid suu ii barayay marba wax sida la iga barayay markii dambe wuxuu ugu dhahay buu yiri cilmiga hadda aan ku bari doono qof waliba lama wadaago balse dadka sidaada oo kale daacad u ah ayaan baraa waxaad u adeegsan doontaa buu igu yiri cidlada yani meesha cidlada ayaad u adeegsan doontaa sidoo kale aadin raaciye waxa la yiri muddadaasi koobneed oo aan wax la ii barayay yani muddo la ii koobay baa jirtay buu yiri oo maalmo ah sida 31 maalmood ama 12 maalmood ama adiga tiro kooban tiradaasi hadii aad ka sii badsatidna cilmigaaga la ku sii kordhaya la igu yiri buu yiri
kadib waxaa la iga mamnuucay buu yiri inaan wax cabo ama aan wax cuno. lacalla haddii aad wax cunaysid ama aad cabaysidna yaysan noqonin liigu yiri buu yiri waxa aad cabaysid biyo ama timir, labadaasiba ka fogow, wax kale way ku banaan yihiin. sidoo kale waxaa igu dhahay buu yiri sheekha, meeshaan cidlada aad muddadaasi joogi doontid waxaad kula kulmi doontaa waxyaabo ku cabsi geliya, laakiin looma baahna inaad cabsato, yacni waad isdejinaysaa wax alaale wixii aad meeshaas kula kulanto waxaa loo baahan yahay buu yiri in aadan ka baqin. acuudu billah, cabsi waaye. kadib waa la kulmay buu yiri wixii la ii sheegay, yacni noolihii oo la ii sheegay ayaa ii soo baxay. kadibna shuruuc badan oo igu xiray buu yiri, anigana waan yacni ogolaaday ama waan ajiibay shuruucdii la igu xiray. yacni waxyaabaha shuruucyo badan la ii soo bandhigay buu yiri, wuuna ogolaaday dhammaan sharciyadii loo soo bandhigay. sidaasina wuxuu ku noqday mid ka mid ah saaxiriintii ugu waaweynaa, walciyaadu billaah. kadib marka aday waxyaabo badan uu ka sheekeeyay, yacni wadooyin qaldan uu u maray ama uu u adeegsaday sixirka iyo jinka. maadaama aan rabno inaan soo koobno muuqaalka, waxaan sameeyey buu yiri, maalin maalmaha ka mid ah wiil baa ii yimid, wuxuuna igu yiri gabar ayaan jeclahay, waxaan rabaa inaan guursado. reerkeeda, gabadha iyo reerkeedana aniga ima ogolo buu yiri, waxaan u baahanahay gabadhaasi inaad ii soo jeediso. kadib waxyaabihii aan adeegsan jiray oo qaldanaa ayaan u adeegsaday buu yiri. gabadhii oo qaawan ayaan u diray buu yiri, yacni ay tagtay. waa marka uu wadooyinka qaldan ama sixirka uu u adeegsaday ee ilaahan ka magangelinaya. gabadhii oo qaawan ay tagtay buu yiri, reerkii ay diidanaayeen gurigooda, iyadii reerkeeda ninkii ay diidanaayeen gurigooda. kadib waxaan arkay buu yiri gabadhii iyo macal reerkeedii oo u dulaysan oo u hoggaansan reerkii ay diidanaayeen. anigoo tii la yaaban, gabadhii aabaheeda ayaa ii yimid buu yiri. gabadha aabaheedana wuxuu yiri wuxuu ahaa aniga saaxiibkay, wuxuuna igu dhahay saaxiib, dhibaatadaas ayaa ii haysata ama gabadhayda ayaa arintaasi la kulantay, iga caawi ama igu garabsii, yacni xal isii, isagoo oo aan ogeyn gabadhiisa inay saas noqoto qofka ka dambeeyey inaan aniga ahay. anigoo yaaban ayaa waxaan ku dhahay buu yiri, guriga tag, wax walba waxaad arki doontaa ayagoo sidoodii aad ku ogeyd ah ayaad arki doontaa. kadib wuu baxay buu yiri odaygii. markii odaygii baxay, anigana qoladii ama shayaadiintii ayaan ku laabtay buu yiri, waxaana codsaday in gabadhaasi xaaladeedii sidii hore lagu soo celiyo. anigoona weliba si yaaban uu yiri, su-aalo badan isweydiinayo iyo sida ay wax u socdaan, ayaa wax walba sidoodii caadiga ahayd kusoo noqotay. markaasaa nafteyda weydiiyey buu yiri in waxa aan samaynayo ay yihiin wax saxan ama wadada aan ku taaganahay inay tahay wado saxan ama wado qaldan. sidii ayuuna rabbi ku waafajiyey inuu toobad keeno. wuxuu bilaabay inuu soomo, inuu salaado, oo yacni oo tawbiyo adiga uu rabbigiis usoo noqdo. kadib way ii hanjabeen buu yiri, hanjabaado badana dhinacooda iga soo gaaray, iyagoona igu hanjabayay inay i dili doonaan ama ay igu ridi doonaan khasaarooyin fara badan. waxaan uga badbaadaa buu yiri dikriga iyo adkaarta aan subaxdii iyo maqribkii aan akhristo. sidii ayuuna ku toobad keenay, uuna u noqday sheekhii yacni wanaagsanaa oo la fili jiray, oo yacni weligiisib dadka ay u malayn jireen. waxaana sabab u ahaa muddadaasi intaas leeg inuu baadidaasi iyo xumaantaasi ku sugnaado dad uu markii hore u doontay inuu wanaag ka barto ama u arkaya inay yihiin dad wanaagsan. si kasta ahaataba muuqaalkan maanta halkaan ayuu ku egyahay. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka inaad daawatay. fadlan ilowin muuqaalka inaad like saarto, aadna sii share garayso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bye bye.